baarlamaanka waddanka Norway ayaa ansixiyay qalinkana ku dugay sharci lagu mamnuucayo in sigaarka lagu cabo goobaha ay carruurtu ku badan yihiin sida garoomada cayaarta, goobaha ay carruurtu ku ciyaarto iyo gaadiidka ay carruurta la socdaan ama ay saaran yihiin. waxa uuna sharcigan caafimaad ahaan aad ugu wanaagsan yahay carruurta iyo dadka waaweyn sida ay sheegayaan khubarada. Guro Birkeland oo ah xogayaha guud ee ururka neefta iyo xasaasiyadda Norway NAF ayaa sheegay inay u tahay guul muhiim ah oo u soo hoyatay caafimaadka carruurta, wuxuuna intaa ku daray in sanbabada carruurtu ay yar yihiin ayna nuugayaan qiiq ka badan kan ay nuugaan dadka waaweyn. sidaa darteed ayuu sheegay in sharcigani lagu ilaalinayo caafimaadka carruurta iyo goobaha ay carruurtu isugu yimaadaan iyo sidoo kale gaadiidka ay carruurtu la socdaan. waxa uuna ku tilmaamay horumar muhiim u ah guud ahaan caafimaadka bulshada. ururka NAF ayaa aad uga shaqaynaya juhdi weynna gelinaya in sharcigan la hirgeliyo, waxa ayna shaqadoodu soo socotay in ka badan 10 sannadood oo ay ku dadaalayeen sidii looga mamnuuci lahaa goobaha ay carruurtu ku badan yihiin iyo gaadiidka ay carruurta la socdaan in lagu cabo sigaarka. waxa ayna sheegeen in aysan halkan ku ekeen doodooda oo ay tahay tallaabada xigta ay qaadi doonaan in guud ahaan laga mamnuuco sigaarka in lagu cabo guud ahaan dalka Norway goobaha ay bulshadu isugu timaado ama goobaha lagu cunteeyo, oo ay dhacdo meelaha qaar in maqaayadaha marka la cunteynayo ay dibadda u soo baxaan banaankeedana sigaarka ku cabaan. taa oo uu sheegay in iyaguna ay ku dadaalayaan in laga mamnuuco meelaha sitaa la mid ah xeebaha, in laga mamnuuco jardiinooyinka iyo sidoo kale beeraha lagu tamashleeyo ay ka dhigaan mid mamnuuc ka ah in sigaarka lagu cabo. wadamada Sweden, Finland, Faransiiska iyo Spain ayaa horey u hirgeliyay sharcigan ka oo ay ku mamnuuceen guud ahaan goobaha ay bulshadu isugu timaado in hareeraheeda ama meelaha u dhowba lagu cabo sigaarka. waxa uuna xogeeyaha ururka neefta iyo xasaasiyadda Norway NAF Birkeland ka dhawaajiyay in ay arrintaani Norwayna kaga dayan doonto oo ay tahay in sharcigani la sii wado lana hirgeliyo oo uu noqdo mid ku dabaqma guud ahaan dalka Norway si bulshada caafimaadkeeda loo ilaaliyo. halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.